shanta sano ee soo socota ubadka Soomaaliyeed wax lagu bari lahaa iyo qaabkii loo hormarin lahaa runtii gobolku wuxuu aad ugu mahadsan yahay hawsha ayada ah inuu qaybta ugu muhiimsan ka qaatay oo maanta uu la soo wareegay mar hadii la yiri hala dadajiyo systemkii iyo maamulkii waxbarashada oo maamul goboleedyadii uu gobolka Banaadir ka mid yahay shaqadii faraha loo galiyay tilaabadii ugu horeyso oo ahayd waxa uu qaaday waxay noqotay inuu 5-year strategic plan-kii miiska soo saaro aan ka wada qayb galno dad fara badan ay isugu yimaadaan aqoon-yahano ah si fiican loo falanqeeyo ayadoo laga soo tixraacayo barnaamijkii national barnaamijkii waxbarashada siyaasadii waxbarashada wasaaraddu ay samaysay iyadoo laga soo tixraacayo in maanta 5-year strategic plan-kii la isugu yimid qaybtiisa ugu horeysana si fiican looga shaqeeyay aanan ka wada qayb qaadanay marka arinta ayada ah juhdigaas la muujiyay waxay dib ugu noqonaysaa inaan mas'uuliyaddii qaadanay ardada Soomaaliyeed ubadka Soomaaliyeed mid jiisa iyo mid toosan iyo mid walba aan ka fakarnay ilaa heer jaamacadeed aan u diyaarinay strategic plan-kaas waxaan rajaynaynaa insha Allah kaadiriinta gobolku marka ay isla xafiiskoodii ku noqdaan inay qurxiyaan oo si hagaajiyaan oo si turxaan bixiyaan oo ayaguna ay wax wanaagsan ay ka soo saaraan waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa waxaan isugu imaanaynaa qaybaha dambe waxaan ballan qaadaynaa inaan ka qayb qaadan doono barnaamijkaasi intuu ka dhamaanayo ka fariisanayo oo looga saldhigayo gobolku waa mahadsan yahay shaqo fara badan buu qabtay qaybihii hore waxbarashadana waa ku soo guuleystay tilaabooyinka uu qaaday qaybaha soo socdana waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay la garab galo